salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegnay qodobada war iyo wacalan idinka hayna carreede waxaa ugu dooro cabdiraxmaan saylici oo doonaya inuu dabamarteeyo suldaan wabar dadkii iska tallaalay infilada 20 midla oo loo soo galay soomaaliya oo lacago xaddaafa soo gelisay magaalada boorama dooni ka shiraaqatay berbere oo ku huruushootay dhudhubka hormo siciidani oo food degeliyey muqdisho xisbiga ka ah oo soo lugooyey xogayo locosa 9 qof oo laga soo badbaadiyey qolyaha gabuurka duubtaa iyo weliba inaa uu siciid iyo mustafa qirdi oo goladda iskula jira wararkaasi iyo wararka oo dheeraad ayaa rajaynahay ku soo dhowaada barnaamijkeen codka almashaariq online waa macad noociisu ku cusub yahay dalka laguna baranayo adoo gurigaaga ee goobtaada shaqada jooga qur-aanka shareecada iyo weliba luuqadaha sida carabida ingiriisida iyo weliba soomaaliga ardaydu marka ay dhammeeyaan koorsada kala duwan ee dugsigan ka baxaya waxay helayaan shahaadooyin kala duwan goor kasta iyo goob kastooda haleelaysaba haata iska diiwaangeliya almashaariq online shir ay maanta isugu yimaadeen qoorweynta xisbiga mucaaradka ee ka ayaa la sheegay in lagu magacaabay afhayeen locosa oo xisbigaas yeelan doono afhayeenkan oo magaciisa lagu sheegay cabdallah fadxi ayaa wararku tibaaxayaan inuu ka tirsan yahay ciidamada xuuraanka iyo dabagalka dalka jabuuti wararka ayaa intaa ku daraya in cabdallah fadxi yahay xubnaha loo soo xil saaray inay dhuudhaasaan ama ay dhegedhegeeyaan geyiga somalilan sida la tibaaxay waxa uu ku dhashay cabdallah fadxi degmada xariirada ee gobolka awdal isagoo beel ahaana tacdhiga duulka gadabiirse la yidhi ninkan ayaa la damuuninaya inuu ka mid yahay dadka aadka ugu dhowdhow ama gacansaarka la leh keligii taliyey ismaaciil cumar geele kaasoo dharaaro ka hor markii lixaad loo macmacay ama maqaarka loo marmariyey inuu sii wado hoggaanka ugu sarreeya dalka jabuuti cabdallah fadxi ayaa lagu nuunaynayaa inuu haatan loo soo xil saaray sidii uu war sugan uga keeni lahaa jamhuuriyadda somalilan isla jeerkaadna uula socodsiin lahaa ismaaciil cumar geele qoob ay qaadaba halkay joogtaba waxay waddaba waxay miiqaysaba waxay ku foogan tahay waxay ku fakiiran tahay iyo waxay ku faruruxdhan tahay intaba dacalka kale hoggaanka sare ee xisbiga ka ayaan isagu marnaba ka hadlin ama soo dhoweynin sidoo kalena aan u riyaaqin aqoonsiga ay somalilan ka heshay dheegan iyo ceelka tarabiib kaasoo uu ka bashiiqsaday ama ka marmarsooday sidoo kalena iska malagay inkacase xisbigaasi burtuurka u ah ee maxamuud xaashi dhinaca kalena dhowaan ayay ahayd ka gadaal markii uu xisbiga kaah ku yimi burbur laxaad leh kaasoo gudaha leh oo dibadda leh oo duleedka leh oo duca leh oo daamaha leh oo degelada leh oo dooxooyinka leh oo dowdowyada leh oo dooxooyinka leh oo dowyada leh oo dergadaa leh oo dusha sare leh oo dohda hoose leh oo ay kaga yaaceen ama ay kaga carareen sidoo kalena ay kaga xaymarteen gudoomiyaashii gobollada degmooyinka tuulooyinka iyo weliba duulkii xisbigaasi u yuururay sida tan iyo dalalka dibadda kuwaasoo guud ahaanba xisbigan gaadhsiiyey jugo iyo weliba gunaado daqarro dawaano iyo dayowyo uu haatan isku dayayo inuu ka soo kabto ama ka soo bogsado amase ka soo miiraabo ama ka soo waaqsado ugu dambayntii bulshada reer somalilan oo in badan saliu ka muujiyey xisbigan ka ayaa haatan ka qancay tallaabada guracan ee uu guddoomiyaha xisbigaasi ku magacaabay cabdallah fadxi oo la og yahay inuu ismaaciil cumar gacanyarow yahay isaguna madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan maxamed aw cali cabdi ayaa cabuudha madaxtooyada kula kulmay qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka hargeysa gaar ahaana 10kii xildhibaan ee isu codeeyey ama isu camiray kuwaasoo ay budhka u tuurayeen duqa iyo ku-xigeenka cusub ee dharaartii shalay la heriyeeyey madaxweyne ku-xigeenka ayaa kula dardaarmay in maamulka cusub ee dowladda hoose ay si siman ugu adeegaan bulshada reer hargeysa daan kasta oo ay joogtaba waxa uu sidoo kalena ku booriyey maamulka cusub inaanay fadhiisan oo aanay seexan oo aanay jiibsan oo aanay nasan oo aanay hakan oo aanay hagran oo aanay hirbin oo aanay hinqan oo aanay hanfadin oo aanay hagaasin oo aanay fududan oo aanay buubin oo aanay bibban oo aanay boodin oo aanay buubal noqon wuxuu ugu baaqay inay hadhka iyo habeenka gelinkiisa hore iyo kiisa dambe saqda dhexe mirka mayraca mugukaalka galbabootiga labada fiidcawl waa beriga hiraabta harimada barqada harsokorka yoomayoomaha iyo gadiidka intaba ay u taagnaadaan waxuqabashada bulshada ceelka hargeysa wuxuu ka duraantay inay isu dulqaataan oo dadka u dulqaataan oo isqanciyaan oo wada tashadaan oo hareeraha qabtaan oo hinjiyaan oo lan taagaan oo ay halkii hore ka sii wadaan oo ay wax ku daraan oo wax ku kordhiyaan oo wax ku biiriyaan isla jeerkaadna ay ballaadhiyaan oo weyneeyaan oo wakaakilaan oo hurbiyaan oo ay howlahooda bogtaan dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka oo hadalka sii tarminaya ayaa duqa iyo ku-xigeenkiisa locoska ah ku wargeliyey inay u socdaan oo u guureeyaan oo u gararaceeyaan oo soo mukheeyaan oo soo xeelaan oo soo xerogeliyaan oo soo xabaadhaan oo ka odayeeyaan
oo ka ergeeyaan oo aanay ka hadhin jaalayaashoodii ka duday ama ka cadhooday ama ka dhirfay ama ka wisiisiyey ama ka weyraxay haddii laga tegi waayena ka gadooday kuwaasoo xejin kari waayey daafadaynta xanafta doorashadii ka dhacday xarunta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa kuwaasoo ilaa iyo hadda fadhiya ama ku dabshidanaya duddada ama duleedka ama socda ama sabada ama qolqolka dowladda hoose Hargeysa wuxuu ku socodsiiyey inay hawsha holiyaan isla jeerkaadna ay u hagarbacaan sidoo kalena ka arrimiyaan sidii ay walaalahood xalay dhalay uga noqon lahaayeen wixii dhacay ee dhammaaday si ay u noqdaan dad midaysan oo isku duuban oo isku daaban oo isdaba ambuulan oo uliyadiirkeeda wuxuu sheegay in wixii xajiimo dhacay laga dambeeyo wada shaqayn isbeerxaadhid isku uulsamaan iyo wixii ay dhaafi weydo ama laga tegi waayo ama ay dani keentay ama badeel loo dhaafi waayo weli halkaad nagala socotaan waa TRTB wararka ka soo baxaya magaalada Boorama ayaa sheegaya in ceelkaasi soo gaadhay shilimo aan yarayn oo laga soo baajeeriyey magaalada Muqdisho taasi oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo dharaarta inuu ku soo aadilay 18 May waxaa la sheegayaa in lacagtan loo soo diray reer Boorama la isugu soo toosiyey in la taaranayo dadkii qoomuhu ka soo gaadheen qaxarkii iyo qatadii ka bawaagay gudaha magaalada Boorama taasoo noqonaysa kicin bulsho abaabul dagaal iska horkeen xin xaasidnimo xaaduqnimo xinjirabajaas iyo weliba belaynaho qorshahan ayaa daba socda wixii ay Soomaaliya ka amaamudaysa gobolka Awdal taasoo lagu doonayay in la iskaga horkeeno Somaliland iyo duulka Gadabiirse la yidhi waxaa la ogaa inuu Axmed Macalin Fiqi ku qaylin jiray loo gurmado Boorama oo laga dhiciyo Soomaali diidka oo laga hoos saaro Somaliland oo loo sameeyo maamul goboleed oo Suldaan Wabar hal isgarab taago oo calalka Soomaaliya laga taago oo hubiya saanad lala gaadho shilimadan iyo taanooyinka la soo gaadhsiiyey magaalada Boorama ayaa u sansaanay inaan weli la soo xerogelin Suldaan Wabar oo dhowaan ku qayliyey inaanu ka hadhi doonin wixii xilka lahaa ee uu wadi jiray iyo laanqa toolihii la wareegi jiray iyo halkii uu ka dhabartay haddaba gudoomiyaha gobolka Awdal ninka magaciisa la yidhi Hebelkay Xasan Mataan ayaa soo dhaweeyay lacagta xamar laga keenay ee la soo gaadhsiiyey dad la sheegay in ciidamada Somaliland qooma soo gaadhsiiyeen iyadoo arrinku iska yahay guri baayna waa cadow ninkii raarta sii guray lacag baa laga soo diray xamar waa heen baa gubatay oo Hargeysa ahayd lacag baa laga soo diray xamar oo waa la taakuleeyay haddii dhibtii ka dhacday Boorama dhaawaceeda laga caawiyo Muqdisho dembibna uma aragno mushkiladda maaha in la wadi jiray baa idinkaanu idiin dhiibnay maxay u eg tahay in dad lagu eedeynayo in Somaliland dhaawacyo u geysatay xamar lacag looga soo diro ma xumaan baa ma wanaag baa ma naxli baa ma naxariis baa ma nasteexa ma naruura ma dhagar baa ma dheef baa ma dhab baa ma dheel baa ma hadima ma hiil baa ma gurmad baa ma guubaaba ma wanjal baa ma wanaag baa ma kicin baa ma dejin baa dhinaca kale waxaa la arkayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland Cabdiraxmaan Saylic oo meel isa soo taagay hadallo gataata u badan kuwaas oo odhanaya ku-xigeen naf ma leh oo nacfi ma leh oo qab ma leh oo qaraab ma leh oo qurdub ma leh oo magac ma leh oo masab ma leh oo maamuus ma leh oo milga ma leh oo amar ma leh oo awood ma leh oo itaal ma leh Hebelkay Saylic ayaa 14 go'ay u dambeeyay ka ceelaya cabuudha madaxtooyada Somaliland isagoo la soo dhamaystay laba madaxweyne oo isu tusan halka kii saddexaadna uu ku dagaalamay hase ahaatee laga garaacay ganafka iyo gafuurka isla markaana la eriyey inta waraaba la eriyo tiyo uu Muuse Biixi ku yidhi baniya kiriya kaa taabidhe ugu dambayntii ninkii ina Cabdalla Xasan ayaa la weydiiyey Ciise ka waran markaasuu yidhi adduunna waa haysteen aradna waa u dhimanayeen Gadabiirse ka waran baa lagu yidhi way ooyayeen cid dilaysana ma arkayn Isaaq ka waran markaasuu ku jawaabay wuxoodii iyo wixii dadkaba way cuneen ciddaynu haysatana ma arkayn dhulbaante ka waran way waalaayeen wax maryaha turayna ma arkayn warsangeli ka waran wax arrinkeenana ma arkayn wax aqbalkeenana ma arkayn majeerteen ka waran madaxnimay doonayeen wax masab haystana ma arkayn iyo weliba ugu dambayntii oo la weydiiyey hawiye ka waran isagoo ku halceliyey dad baan ka hadlayey waxaa weli sii socda dhismaha dabaqa labaad ee sarta masjid jaamaca Macalin Xirsi ee magaalada Caynaba qaybtiisa koowaad kaasi oo ay ka qayb qaadanayaan bulshada Soomaaliyeed ee wanaagga jecel isla markaana hor Ilaahay ula baxaya wixii ay awoodaan ee ay ugu deeqayaan gurigan eebe oo aan cidna laga xigin ama si aan laga sheegan karaynin sida aad la wada socotaan waxaa dhammaaday foolkii koowaad ee masaajidkan waxaana iminka la rabaa in laga bilaabo qaybtii koowaad ee dabaqa labaad oo u baahan in looga qayb qaato hor Ilaahay iyo habeen aakhiro iyadoo wax la sii dhiganayo maalinta dambaysa ee la qatan yahay ama se la qaawan yahay taasi oo ah dharaarta eebe qur-aankiisa ku yidhi ama ku sheegay yowma laa yanfacu maalan walaa banuun ilaa man ata allaahu bilqalbi saliim haddaba daawadee lambarada aad wax kula baxayso oo kuwaa shashada kaga muuqda